ujeedada socdaalka iyaga aanu ku nimi aniga iyo waftiga kaleeto la socdaa magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa weeye inaanu ka qayb galno shirka 77aad ee qaramada midoobay oo ka qabsoomi doona xarunta United Nationska ama qaramada midoobay ee New York inta u dhaxaysa 18 ilaa 25 bishan shirkaas ayaa waxa horyaala ee lagaga doodi doona la iskuna weydaarsan doona araa badan oo la xiriirta isbedelka cimilada amniga guud ee caalamka gaar ahaan meelaha xasaradaha iyo dagaalada ka socdaan cunto yarida oo ah arrin soo wajahday caalamka sidoo kale waxa jiri doona oo si gaar ah looga hadli doona arrimaha khuseeya qaaradaha iyo deegaamada kala duwan ee caalamka oo mid walba gaarkeeda sida muhiimad u kala leeyihiin looga doodi doono waxa hadal ka jeedin doona madaxda wadamada sida madaxweynayaasha oo madaxweyne walba oo muhiimada wadankiisa khudbad dabooleysa uu ka jeedin doono anigu ka wasiir arrimaha dibadda ahaan ee xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya waxaan qayb ka ahay shirkaas waxa ii yaala oo ii qorsheysan la kulanka wasiirro badan oo dhigayga oo ka imanaya qaaradaha kala duwan ee adduunka ugu yaraan hadda inta ajendaha ay ku jirta ilaa 10 in ka badan inaanu aragno ayaa laga yaabaa oo ah kuwa ka yimid bariga dhexe Yurub Mareykanka iyo Afrika intaba oo dhammaantood ay noo yaalaan hawlo ina khuseeya ee masaalixda wadamadaas ay ku jiraan sidoo kale madaxweynaha ayaa la kulmi doona madaxweynayaal badan iyo dhowr ah ee iyaguna ka yimid wadamo kala duwan oo iyaguna ka wada hadli doona arrimo noocaas oo kala ah shirkan oo dhowr bar qaadan doona wuxuu noqon doonaa shir aad iyo aad muhiim u ah isla mar ahaantaana waqtigiisu oo aad ciriir u yahay marka loo fiiriyo qadiyadaha yaala ay tahay in laga shaqeeyo waxaan jecelahay ka waftay ahaan waftiga Soomaaliya inaanu horgeyno caalamka qadiyada iyo muhiimadaha ugu mudan ee dawladda hadda Soomaaliya ilaahay idankiis mar horeba waftiga hordhacaha ee madaxweynaha hogaaminayay ee gool la taaban karo ayay soo taabteen dhinaca Washington sidaas la mid ah ayaan waxaan jecelahay dhinacaana inaanu keeno sidaas oo kale gool wax taro ah wadankeena waxaanu filaynaa ilaahay idankiis shirkan inuu noqdo shir aad uga duwan isla mar ahaantaana miro dhal ka ah oo wax soo saarkiisa iyo saameynta inuu ku yeelan doono horumarkeena oo aad uga duwanaan doono kuwii hore waxaad naga filataan insha Allah guul waxaanu jecelahay ilaahay idinkii maslaxadeena iyo jiritaankeena iyo midnimadeena iyo horumarkeena iyo amnigeena wax khuseeya in ujeedadayada iyo muhiimadayadu ay noqon doonto